boqolaal shacab Soomaaliyeed oo ka kala yimid degmooyinka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka Soomaaliya siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo dhammaantood calanka Soomaaliya gacanta ku siitay ayaa xarunta dhismaha dawladda hoose ee Xamar uga qayb galay xuska sanad guurada 56 ee xorriyadii gobolada Koonfureed iyo midowgii gobolada Koonfur iyo Waqooyi. fanaaniinta gobolada Waaberi ayaa bedelay dareenka madasha kadib markii ay ku luuqeeyeen heesaha wadaniga gaar ahaan kuwa xorriyadda loo sameeyay. رئيسل وزراء ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalid ayaa ku dheeraaday ka sheekaynta dhibkii loo soo maray helitaanka xorriyadda waxaana uu ku cabiray kala qaybsanaanta maanta ee dadka Soomaaliyeed iyo sida shakhsiyan ay u taabanayso. markaan run wada hadalno waxyaalaha anagu hadaan leeyahay dadkayga reeqooy ka soo jeed ee Soomaaliland ka soo jeed waxaan u taaganahay waa midnimo uma taagnin wax kale hadaan midnimo u taaganahay sidii annaka abayaasheen ay u sameeyeen u hureen naftoodii ay u keenaan midnimadii ay rabtaan ku taagana anigu gurigayga hargeysa ma tagi karayo yani waxaan rabaa inaad qiimaha ay nagu leedahay inaad fahamtaan baan doonaya anigu hargeysa oo gurigayga ku yaalla ma tagi karayo sababtu waa maxaan u tagi kari waay inaan isweydiino weeye qiimaha ku qiyaasaysaana taas la idinka rabaa waxa weeyaan inaad ogaataan inta loo hurayo inaad fahamtaan ayaa la doonaya taasaanu diyaar u nahay oo doonaynaa inaan kula shaqeyno idukula midowno wax idukula wada yeelano. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hoggaanka siyaasadda dalka uu hadda hayo wadada loo mariyo midnimada waxaana uu xusay in go'aano adag loo qaadan doono si Soomaali weyn ay dib isugu soo laabato. dalku Ilaahay idinkiisu uu midoobaya laakiin wuxuu ku midoobayaa mabaadi iyo qawaacid adag oo markale aan khalkhal gali karin oo aan dib dambe yani wiilkeena ah oo si uun aragtidu ka noqotay aanu muxuu ahay ku tarax tagi karin oo aanu xumeyn karin waana inaan dareenka noocaas ku abuurnaa caruurteena inta ay yaryar yihiin iskuulaadka joogaan inaan ku abuurnaa laana kuwa iskuulka fadhiyo ee bacda la barayo waaye kuwa bari dalka xukumi doono ee madaxweyne iyo wasiir iyo ra'iisul wasaare iyo taliye ciidan wax walba ka noqon doono waa iyagaas marka iyagaas inaan maskaxdooda gelidsiino oo aan ku soo barbaarino midnimada iyo Soomaalinimada iyo dawladnimada iyo muhiimadda ay leedahay iyo waxa ay u taagan tahay waa kuwa inaan barno laga rabo. inkastoo munaasabadan lagu weyneynayo kuwada luuliyo lagu qabtay Soomaaliya gaar ahaan caasimadda haddana waxaa xusid mudan inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed ay u suurtagali weysay xuska maalintan sababo la xiriira dhinaca ammaanka iyadoo dadkii halkan xarunta dawladda hoose yimidna baaritaano dhaadheer la geliyay. waxaa xusid mudan sidoo kale in dad badan oo dalka dibadiisa ku nool aysan u suurtagelin in fantasiyaha noocan ay ka qayb galaan. عبد الناصر محمد علي تلفزيون كون كيبل حرونت الدولة هوسة مقدشو.